Qardho Foundation oo kamida ururada ka howlgala gudaha Puntland ayaa maanta deeq 200 oo kiis oo sibidha gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Qardho. Cisbitaalka oo waayadan dambe ka socday dhismo lagu ballaarinayo cisbitaalka. Xafladda ururku ku wareejinayay 200 ee sibirka ah ee ugu talagaleen cisbitaalka lagu daro ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada, odayaal, ururada haweenka ee ka howlgala gudaha magaalada Qardho iyo agaasimaha guud cisbitaalka weyn ee magaalada Qardho. qaar kamid ah xubnaha ururka Qardho Foundation ugu horantii ayaa waxa ka hadlay xafladan agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Qardho Cismaan oo Muuse waxaana uu mahad celiyay ururka maanta soo gaarsiiyay 200 oo kiis sibirka waxa sidoo kale uu codsaday inay ururada kale ay ka qayb qaataan. waxaan ka codsanaynaa intiina tan hadda maanta meesha la joogta oo degmadu way ku dhantay deegaanku madaxda ashaan meesha nala wadaan sida noola wadeen iyo si ka fiican marka waxaan ka codsanaynaa dadka deegaanka khiyaarta odayaasha mushtariga wadaadada ururada maxalliga inay cisbitaalka waxay ku tabaruc karaan ugu soo tabarucaan wax walba u baahna. gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika odayaashii haweenkii ka soo qayb galay xafladan ayaa iyaguna goobta ka hadlay. waxaan bogaadinaynaa ururka samafalka ee Qardho Foundation oo maantay cisbitaalka mashruuca cisbitaalka Qardho mashruuca dhismaha cisbitaalka Qardho ugu deeqay 200 oo kiis oo sibir ah taas oo wax ka tari doonta ama wuxuun kamida wixii mashruucu u baahnaa. waxa jira ururo samafal oo badan oo hadii Ilaahay mahay maaragtay deegaanka ka shaqeeya oo maxay ahayd sida danwadaag sida karkaar sida ururka horumarinta waxa jira dad ganacsata oo dhaqaale haysta. waxaan ugu baaqaynaa kulligood in laga qayb qaato si loo dhameystiro. waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo aan hambalyo u jeedinayaa ururka soo xilqaamay Qardho Foundation oo maanta keenay 200 oo kiish oo shamiitada ah. waxa weeye markii hawlisaan oo kale u socoto 10 kiish qofka keena waxbay taraysaa. waxaan u mahad celinayaa Qardho Foundation oo ah urur maxay ahayd waxtar horena geystay degmada u geystay haddana la sheegay inay dhakhtarka qayb libaax ka qaateen intii tamartooda waxa yar iyo waxa weyn waa isku mid qofkii keena. waxaan ugu baaqayaa dhammaan ururada maxalliga ah INGO-ga iyo community-ga iyo business-ka inay isbitaalka ku soo eegaan ilxoog leh. isbitaalku waxa la gashanayaa waa sadaqad taariikh. ugu dambeyntii ayaa waxa soo gabagabeeyay duqa degmada Qardho. aad baa ugu mahad celinayaa Qardho Foundation oo runtii maanta xafladda tan halka la isugu yimi iyadoo mas'uuliyadeeda leh iyadoo cisbitaalka ugu deeqday 200 oo kiish oo shamiita runtii wax weyn weeye wax badan bayna ka qabanaysaa dhisidda cisbitaalka. waan ognahay cisbitaalkan muddo yar sida hadda injineerku ka sarqamiyay 5 bilood buu socdaa. waxa iyagana ka qayb qaatay hay'adda Save Children oo runtii iyadana aan u mahad celinayno oo runtii cisbitaalkan inta badan gacanta ku hay. waxa ka qayb qaatay injineer Jabiye oo runtii isna 20,000 oo dollar ugu deeqay cisbitaalkan isagana mahad mudan. dadka kale oo iyagana kunkunka iyo inta kale la baxayna iyagana waa mahad celinaa. waxaan leenahay marka waa in laga wada qayb qaataa dhismaha cisbitaalka. Rawaa Birciise Hon Cable TV magaalada Qardho.